soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku hormaraynaa maraykanka oo qaaday tilaabo kale oo lid ku ah maxkamadda cadaaladda waa maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ee fadhigeedu uu yahay magaalada The Hague arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo maraykanku horay uu u sheegay inuu ku hawlan yahay maxkamaddan gebi ahaanteedba in meesha laga saaro haddaba go'aankan maraykanku uu qaatay iyo maxkamadda waxa ay ka tiri haddii aynu eegno dowladda maraykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay madaxweynaha maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC garsoore Tomoko Akane oo u dhalatay dalka Japan iyo sarkaalka sare oo ka tirsan maxkamadda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Marco Rubio ayaa sheegay in Akane iyo sarkaalka kale lagu soo rogay cunaqabataynta iyadoo la raacayo amar madaxweyne Trump soo saaray oo quseeya ICC Rubio ayaa ku eedeeyay saraakiisha maxkamadda inay si toos ah uga qayb qaateen dadaallo lagu baarayo laguna xirayo ama lagu maxkamadaynayo mas'uuliyiin ka tirsan dalal aan aqbalin awoodda qaanuun ee ICC waxaa sidoo kale uu maxkamadda ku eedeeyay inay tahay waa sida hadalka u dhigaya hay-ad siyaasadaysan isla markaasna ay si qaldan u adeegsanayso awooddeeda Washington waxay sheegtay inaysan aqbali doonina tilaabo ay u aragto inay wax u dhimayso madax banaanida Maraykanka iyo dalalka aan saxiixin heshiiska Rome ee lagu dhisay maxkamadda Rubio ayaa waxa uu ku andacooday in ololaha Maraykanka ee ka dhanka ICC uu sii socon doono isagoo ku baaqay in wadamo kale ay joojiyaan maalgelinta iyo taageerada maxkamadda la siinayo dhankeeda maxkamadda ICC ayaa daboolka ka qaaday in cunaqabatayntu aysan ka hor istaagi doonin gudashada waajibaadkeeda iyadoo garab istaagtay garsoorayaasha dacwad oogayaasha iyo shaqaalaha maxkamadda Akane waxa ay maxkamadda madaxweyne ka noqotay bishii March 2024 waxaana garsoore maxkamadeed loo doortay 2017 xiisadda Washington iyo maxkamadda ICC ayaa sare u kacday sababo la xiriira baaritaanada iyo go'aanada maxkamadda ee ku saabsan dagaalka Gaza iyo saraakiisha Israa'iil maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu qaadi karo tilaabooyin dheeraad ah oo ka dhana maxkamadda haddii loo baahdo arrinta marka waxay ku soo aadaysaa xilli maxkamaddu ay dacwad ku soo oogtay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant isla markaasna maxkamaddu ay dalbanayso inay hor yimaadaan oo ay isdifaacaan go'aanka marka Maraykanku markuu soo baxay xalay aad baa loo falaqeeyay xitaa gudaha Maraykanka aad baa loo falaqeeyay arrintan lafagorayaasha marka waxay leeyihiin laba su'aal ayaa la isweydiinayaa waa midda koowaad haddii Maraykanku uu leeyahay waxaan ka soo horjeednaa maxkamaddu wadamo aan saxiixin qaanuunka lagu dhisay maxkamadda in dacwad lagu soo oogo soo tani macnaheedu ma ahan adduunka inuu isla xisaabtamin inkastoo maxkamadda la eedeynayo mar horeba oo lagu eedeynayo in wadamada yaryar sida kuwa Afrikaanka ay gacanta morojiso oo dadka lagu eedeynayo dambiyada dagaalka ay soo qabqabato laakiin qaanuun wuxuu ahaa si kastaba ha noqotee la dugsanayay qaanuunka marka haddii meesha laga saaray su'aashii la isweydiinaya marka waxay noqotay Maraykanku adduunka waa sida khubaradu leedahay ma wuxuu u horseedayaa inuu noqdo adduun ay ka jirto shuruucda duurjoogta macnaha xarig lama sitaan inaan isla xisaabtamin qodob waa qodobkaas arrinta kale waxay noqotay marka sababta Maraykanku u leeyahay Israa'iil laguma soo oogi karo dacwad
xitaa lafagurayaasha maraykanka waxay isweydiinayaan sidee marka maraykanka loogu kalsoonaan karaa markuu leeyahay waxaa dhexdhexaadinayaa israa'iil iyo dhinacyada ka soo horjeeda ama is haystaan sidee loo aaminayaa marka soo muusan caddaysan israa'iil military ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo qaanuunka inuu ku difaacaya marka su'aalahan isweydiinaya inkastoo maxkamadan waddankii lagu dhisay oo ah waddanka talyaaniga ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu dul maray isagoo ku sii jeeda waddanka maraykanka imise waddan buu maray griiga faransiiska iyo talyaaniga talyaaniga waa meeshii lagu dhisay maxkamadan 2002 heshiiska Rome baa la yiraahdaa heshiiska lagu dhisay waddankiibuu dul maray ra'iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu marka dad badan waxay leeyihiin ka falcelinaya baraha bulshada maxaa loola yaabayaa Trump haddiiba waddamadii Yurub ay sidaasi samaynayaan diyaaraddii waa arkaysaan Israa'iil bay ka duushay Griigay martay Talyaanigay sii martay Faransiiskay sii martay badda Atlantikay ka sii dhacday Kanaday dul martay xitaa kadibna Maraykanka tagta waa safarkii ugu dambeeyay hadda toddobaadii ka hor Netanyahu ku tegaya Maraykanka wuxuu iska ilaaliyay oo keliya Spain iyo Ireland iyo Portugiiska Spain horta waxay tiri hadduu hawadeena soo maro ra'iisul wasaaraha Israa'iil diyaaraddu waa dejinaynaa isna waa jeebeynaynaa وهجاج وركاس انت اينو كجودمنا markan waxaynu eegaynaa wararka la xiriira xiisadii waxa soo xoogeysatay Turkiga iyo Israa'iil habeen hore Israa'iil waxay duqeysay saldhig military oo ku yaala gudaha waddanka Syria haddaba habeennimadii xalay xafiiska Netanyahu ayaa wuxuu soo saaray qeyl ku aadan weerarkaasi iyo sababihii loo qaaday aynu eegno warbixin ay daabacday jariirada The Times of Israel Israa'iil ayaa xaqiijisay in ay duqeymo ka geysatay habeen hore garoon dayuuradeed oo military oo ku yaala Suuriya iyadoo ku andacootay in ay ka hortegaysay qorshe Turkigu ciidamo ku geynayo saldhiggaasi xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil iyo Suuriya ay horey ugu heshiiyeen in xaaladda amni ee jirta aan wax laga bedelin balse Dimashq ay ku dhawaatay inay jebiso heshiiskaas kadib markii waa si hadalka loo dhigay ay ogolaatay in ciidamo Turkiya la geeyo saldhigga Abu al-Dahur ee waqooyiga galbeed ee waddanka Suuriya Israa'iil waxay sheegtay inay dhowr jeer uga digtay Syria joogitaanka ciidamo Turkiya oo la geeyo halkaasi iyadoo ku tilmaamtay arrintaasi mid khatar ku ah ammaankeeda sarkaal Turkiya ayaa dhankiisa wuxuu si adag gaashaanka ugu dooray wararka ku aadan in Ankara ay qorsheynayso in saldhig ay ka samaysato goobtaasi dhinaca kale ergeyga Maraykanka u qaabilsan Suuriya Tom Brack ayaa isna wuxuu sheegay in Washington ay ka shaqeynayso hanaan xiriir military oo dhexmara Turkiga Israa'iil iyo Suuriya si looga hortago isku dhac aan si ula kac ahayn Tom Brack ayaa ku nuuxnuuxsaday in Turkiga aan horey loogu wargelin duqeynta Israa'iil taasi oo uu sheegay in sare u qaadi karto halista jawaab military oo ka timaada dhanka Turkiga Turkiga wuxuu cambaareeyay duqeynta halka Brack uu sheegay in dhacdadani ay muujinayso baahida loo qabo in la xoojiyo wadahadallada lagu dejinayo xiisadda xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa si weyn u xumaaday tan iyo dagaalkii Gaza iyadoo Ankara ay noqotay mid ka mid ah xulafada ugu muhiimsan ee dawladda cusub ee Syria ee uu hogaamiyo Ahmed al-Sharaa waa tahay warkaas inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xiisadaha colaadeed ee Maraykanka iyo Iiraan oo war ka soo saartay hadallo ka yimid Imaaraadka oo ahaa in habeennimadii xalay Iiraan gantaal ay ku garaacday waddankeeda xogayaha golaha amniga qaranka ee waddanka Iiraan oo Trump ku jeesjeesay wararkaas iyo qodobo kale iyo warar hadda soo dhacay intaan u gudbin ayna ku hakanno qadar xayeysiina waa hagaag bal markan aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xiisadaha colaadeed ee Iiraan iyo Maraykanka ka dhex aloosan
iyadoo xaaladdu weli cirka ay ku shareeran tahay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in markaa dhanka Iiraan warar ay ka soo yeerayaan jees ah. Haddaba xogayaha golaha amniga qaranka ee Iiraan Muxsen Rizai ayaa ku jeesay hadal madaxweyne Trump uu ku sheegayo in marinka Hormuus uu yahay dhul Maraykanku uu leeyahay xilli xiisada gobolku ay sare u sii kacayso. Rizai ayaa waxa uu qoraal ku daabacay bartiisa bulshada wuxuuna ku sheegay farqiga u dhaxeeya awood la'aanta Maraykanka iyo dib u furista lagu furayo marinka Hormuus iyo sheegashadiisa lahaanshaha marin biyoodka uu ka weyn yahay masaafada u dhaxaysa Washington iyo Hormuus. Macnaha inta ay isku jiraan Hormuus iyo Maraykanka masaafada isku jiraan oo dhowr kun oo kiiloomitir ayuu wuxuu leeyahay intaas ayaa waxa isku jira in Maraykanku ku guuleysto. macnaha baaxadda ay la'ag tahay guuldarrada intaas bay la'ag tahay buu ka wadaa. marka meesha dagaal hoosaa ka socda. dagaalkii qoriga ah ma ahan oo keliya dagaal maskaxeed, dagaal hoose, biyaha hoostooda la iska arkay halkii Soomaalida ku tiri. waa hagaag warkaasna inta aynu kaga gudubno aynu ku sii soconno wararkan iyo macluumaadka ugu dambeeya. isla Iiraan gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan ahna madaxa wadaxaajoodka Maxamed Baaqir Qalibaaf ayaa dhaliilay siyaasadda Washington ee cadaadiska lagu saarayo Iiraan isagoo tilmaamay in Maraykanku si qaldan u rumaysan yahay in cadaadis dheeraad ah Iiraan uu ku qasbi karo tanaasuc cusub. Qalibaaf ayaa qoraal ku baahiyay bartiisa bulshada waxa uu ku sheegay in Maraykanku uu doonayo in heshiisyo iyo tanaasul aan qayb ka ahayn wixii markii hore laga wada hadlay. waxaa sidoo kale carabka ku adkeeyay isagoo dhaliilaya xogayaha maaliyadda ee Maraykanka Scott Bessent iyo xogayaha difaaca Pete Hegseth isagoo ku tilmaamay inaysan awood u lahayn inay xaliyaan khilaafka taagan. hadallada Qalibaaf ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisadda siyaasadeed iyo amni ee Washington iyo Tehran ay sii xoogaysanayso. wararka Iiraan ayna ku sii soconaya dowladda waddanka Iiraan ayaa si adag u beenisay eedayn uga timid Imaaraadka Carabta oo ku aadan in 2 gantaal oo balastiig ah Iiraan ay ku weerartay dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Bakhai ayaa eedaynta ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn waxaanu ku nuuxnuuxsaday in Tehran gebi ahaanba ay diidan tahay sheegashada Imaaraadka. Bakhai ayaa waxa uu sheegay in eedamaha caynkaasi ay ka soo horjeedaan mabda'a daris wanaagga isla markaasna ay dhaawacayaan dadaalada lagu dhisayo kalsoonida wadamada gobolka laguna yaraynayo xaaladaha amni darro. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada gobolka inay ka fogaadaan eedeymo aan caddaymo lahayn. Bakhai ayaa sidoo kale sheegay in qiimayn kasta oo xaaladda gobolka ah lagu daro waxa Iiraan ay ku tilmaamayso tillaabooyinka Maraykanka iyo Israa'iil ee wax u dhimaya nabadda iyo ammaanka gobolka. xagga Israa'iil ayaa war ka soo kordhay. maalmahan waxa Israa'iil ku sugnaa Jared Kushner oo ah wiilka qaba Trump gabadhiisa. ninkan marka Qaahiro wuxuu kula soo kulmay Qaliil al-Haya iyo mas'uuliyiinta Xamaas. Xamaas waxay tiri Israa'iil haddii ciidankeeda uu ka baxo Maraykanka Gaza annagu hubkaan dhigaynaaba. arrinta markii ula tegay Netanyahu wuxuu yiri maya Netanyahu waa inay horeysaa Xamaas inay hubka dhigto. Maraykanku ku raaceen arrintii. Maraykanku haddana waxay yiraahdeen joojiya Israa'iil haddaad tihiin duqaynta aad ka wadaan Maraykanka Gaza. Netanyahu wuxuu yiri maya. hadda wuxuu yiri waxaan dhawaan soo saarnay qaanuun qof kasta oo ka qayb qaatay weerarkii 7 Oktoobar in lagu dilo Ilya aragti. Maraykanka markaa ka diidnay buu ku leeyahay Netanyahu arrintaas. arrinta markaa waxa la aaminsan inay tahay arrin doorashada la xiriirta. shalay ugu dambeysay Israa'iil duqayn bay ka geysatay weliba xalay fiidadkii Maraykanka Gaza 6 qof baa ku dhimatay ilmo yar baa ku jiray. Israa'iil waxay ku andacoonaysaa inay baagsatay taliyaal ciidan oo ka tirsan Xamaas oo qorsheynaya weerar. arrintan la yaab marka waxay noqotay qof kasta oo dilo waxa leeyahay weerar buu qorsheynaya. dadku marka waxay leeyihiin qobarada Carabta Xamaas haddii dagaal rabto dagaalku way qaadi lahayd. laakiin xabajajintan kumeel gaarka markii la gaaray ee afka baarkiisa ah hal weerar Xamaas ma aysan qaadin.
marka marwan barquuti oo kale wuxuu leeyahay Netanyahu Mareykanka wuu ku ciyaarayaa Mareykankuna wax allaale wixii uu doonayay Netanyahu ayay yeelan buu leeyahay waraysi buu siiyay telefishinka Al Jazeera anagoo soo xiganayna warkiisa marwan barquuti maamulka Falastiiniinta muddo dheer buu ka tirsanaa rabaduu degan yahay waa siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee xitaa xukuumadda Maxamuud Cabbaas soo maray ilaa iyo Yaasir Carafaad la shaqeynayay wasiirka warfaafinta soo noqda wuxuu leeyahay Mareykanku waxay u ogolaadeen oo sidoo kale u dhigayo wax walba oo Netanyahu uu doonay ay ogolaadeen buu ku leeyahay wahagaag haddaba intana ka bixin aynu eegno haddii ay jiraan warar soo kordhay dhanka Israa'iil ayaa war ka soo kordhay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa sheegay in ciidamadoodu ay sii wadi doonaan weerarada Gaza kadib markii duqeyn diyaaradaha Israa'iil ee aan duuriyaha lahayn 6 qof oo ilmo yar oo ku jiro ay ka geysteen marayka Gaza habeennimadii xalay weerarka ayaa lagu qaaday maqaaxi ku taal dekedda galbeedka magaalada Gaza waxaana sidoo kale dhaawacmay dad rayid ah Katz ayaa qoraal ku daabacay baraha bulshada waxa uu sheegay in weerarka lagu beegsaday si hadalku uu yiri xubno ka tirsan Xamaas isagoo ku tilmaamay hawlgal looga gol leeyahay sida hadalku u dhigay ciribtirka qataraha wasiirka ayaa sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto adeegsiga awoodda si ay u ilaaliso ciidankeeda una xaqiijiso ammaanka deegaanada koonfurta Israa'iil weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli wali ay jiraan walaacyo ku saabsan xabajoojinta Gaza iyo howlgallada military ee Israa'iil ay ka wada halkaasi waa tahay warkaasna inta aynu kaga gudubnay wahagaag intaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabayno saaka barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waayno barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh